Hackersku waa dad leh aqoon ama xirfad kombuyuutar kuwaas oo aqoontooda uga faa'iideystay inay wax ku dhacaan ama ay ku xadaan waxyaabaha ay xadayaan ha noqdaan macluumaad dawladeed iyo kuwa bangiyada adduunka haddaba waxaan idinla wadaagayaa ragga burcada internetka ama loo yaqaano hackerska ee adduunka ugu khatarta badan. Jonathan James intii u dhaxaysay June iyo October sanadkii 1999 wuxuu ahaa hackerka ugu weyn ee adduunka isagoo bilaabay da'diisa oo 15 jir ah inuu wax dhaco. Jonathan James wuxuu dhalasho ahaan ka soo jeedaa dalka Mareykanka khaasatan state loo yaqaano South Florida. wuxuu kaloo noqday qofkii ugu horeeyay ee wax ku dhaca habkan wuxuuna ku dhacay system ay ka shaqeynaysay hay'adda NASA ee dalka Mareykanka taasoo sababtay in hay'addani shaqayn weyday 21 qosho. sidoo kale sidii loo soo celin lahaa waxaa ka galay dawladda Mareykanka qarash dhan $41,000 markii dawladda Mareykanku ogaatay inuu dhacay systemkan waxaa loo diray xabsi guri ilaa uu ka gaadhay da'da 18. Matthew Baffin iyo Richard Bryce waxay dhalasho ahaan ka soo jeedaan waddanka Britain waxayna bilaamatay inay wax dhacaan markii ay noqdeen saaxiibo isugu dhow xilligii iskoolka iyagoo oo ku adkeed waxbarashada caadiga ay ku qaataan iskoolka laakiin ay xiiseynayeen waqtiyo badan gelinayeen sidii ay uga mid noqon lahaayeen hackerada ama dadka wax dhaca ee adduunka ugu waaweyn waxayna daahan jireen. Baffin 22 sano ayuu jiray halka Bryce oo ahaa isagu mid ka yar uu jiray 16 sano. ugu dambeynna waxay ku guuleysteen inay dhacaan 1996 xoga ay leedahay hay'ad la dhaho Griffiths Air Force Base oo ka shaqeysa hawada New York. markii dambe la ogaaday dawladda waxay ku xukuntay xabsi. Edward Macherski ayaa lagu xukumay 9 bilood oo xabsi federaal ah kadib markii uu si sharci darro ah u galay email ay leeyihiin in ka badan 300 oo qof oo ay ku jiraan ugu yaraan 30 akoon ay leeyihiin dad caana. wuxuu horey u qirtay dambiga ah inuu jabiyay sharciyada khiyaanada iyo xadgudubka kombuyuutarka oo hackeris inuu noqday. wuxuuna dadkaas u diri jiray qoraal isagoo iska dhigaya shirkado waaweyn markii ay u soo jawaabaan kadib waxa uu u diri jiray qoraal ah inay geliyaan emailkooda iyo passwordkooda kadibna saas ayuu ku jabsan jiray kuna heli jiray qoraalada iyo fiidiyowga u khaaska. markii dambiga uu qirtayna waxaa lagu xukumay 9 bilood oo xadhiga. Gary McKinnon ama waxa kale oo loo yaqaan Solo waxa uu dhalasho ahaan ka soo jeeday Scotland 2002 wuxuu noqday ninkii ugu horeeyay ee lagu eedeeyay inuu dhacay kombuyuutar ay leeyihiin ciidanka militariga ee dalka Mareykanka. sidoo kale ninkan wuxuu istaajiyay shaqada hay'adda UFO wuxuuna waalidiisa ka saaray dhammaan wixii macluumaad ee ku jiray waxaana dib u soo celinteeda kaga baxay dalka Mareykanka qarash dhan $7,000 wuxuuna ku qoray waxaan ahay Solo waan wadayaa hawshan anigu. ugu dambeyn markii dacwadiisu ay ka dhacday dalka Ingiriiska 2012 xogayaha arrimaha gudaha ee dalka Ingiriiska Theresa May ayaa ka hor istaagtay in loo dhiibo dalka Mareykanka. Garden of Peace November 24 2014 koox burcada oo isku magacawday ilaaliyaasha nabadda ayaa sii daayay xogo sir ah oo ka sii daayay studio la dhaho Sony Pictures. waxaa ku jiray macluumaadka shakhsiyadeed oo ku saabsan shaqaalaha Sony Pictures iyo qoysaskooda. sidoo kale waxaa ku jiray emailada u dhaxeeya shaqaalaha. sidoo kale waxaa ku jiray macluumaadka ku saabsan mushaharaadka fulinta ee shirkadda. sidoo kale waxaa ku jiray nuqulada filimaankii Sony ee aan markaas la sii deyn, qorshooyinka mustaqbalka ee filimada Sony iyo qoraalada filimada qaarkood iyo macluumaad kale. intii lagu guda jiray jabsashada kooxda waxa ay ka dalbadeen shirkaddii Sony inay ka laabtaan filimkeeda soo socda ee The Interview. filimkan oo ah mujaajilo ku saabsan shirqool laga doonayo in lagu dilo hogaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi khaasatan hogaamiyaha hadda xilka haya ee Kim Jong Un waxayna ku hanjabeen haddii ay ka laaban waayeen filimkooda The Interview weeraro argaxiso oo ka dhacaysa shineemooyinka lagu daawado filimkan. saraakiisha sirdoonka Mareykanka kadib markii ay qiimeeyeen software-ka farsamooyinkiisa iyo ilaha shabakadaha ee loo adeegsaday jabsashadan
waxay ku andadcoodeen in weerarka uu ahaa mid ay maalgelisay dowladda waqooyiga kuuriya ee uu madaxweynaha ka yahay Kim Jong Un. sidoo kale dowladda waqooyiga kuuriya ee uu madaxweynaha ka yahay Kim Jong Un way diiday inay madaxa saarato weerarkaas. ilaa haddana lama ogaan cidii ka dambeysay. waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan. waxaan filayaa ama rajaynayaa inaad ka heshay fiidiyowgan. waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad nagu sharafto ama nagu dhiirigeliso page-ka follow inaad noo saarto, sidoo kale noo share gareyso, like-na aad noo saarto. mahadsanidin.